waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. waa la joogo iyo goor la joogaba jacaylku waa dareen ku samaysan abuurta noolaha intiisa badan, gaar ahaan dadka iyo xoolaha kale ee naasleyda loo yaqaan. sidaasoo ay tahay haddana ujeeddada jacaylku waxay ku jirtaa tira ahaan kuwa ugu yar ujeeddooyinka maansadii hore ee Soomaalida. taasi waa hubbiya kama dhibcaana oo ka murankeeda lafagorayaasha suugaanteennu ay waa hore ka faraxasheen. su-aashuse waxay tahay maxaa loo aanayn karaa? aragtidayda sababtu waxay xiriir la leedahay habkii nololeed ee ka jiray geygii ay Soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii Soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tabaalay. wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoono halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanoo kala go' lahaan jirin. colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa. haddii habeendumo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa. xoolaha ayay si ba'an u kala qaadi jireen. kolkaas bay u ahayd mar ay dhacayaan iyo mar ay dhacsanayaan, mar ay ceel ku dirirayaan iyo mar ay cabsin kala riixanayaan, mar ay geedka shir ku garramayaan iyo saymo roobaad meelo ay ku hooreen, mar ay geedi u yihiin. haddaba ninkii Soomaaliyeed ee geyiga sidaasa muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan. waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adadayg ku tilmaanaado, inuu dareemadiisa qof ahaaneed qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan. siljireeca iyo dabeecsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu ogaado lagu daraabo. dhifna waxaa ahayd saygu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeedho, ama meel laga arkaayo uu ku salaamo, ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay, ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeene. sidoo kale in doontaba ha jeclaadee waxaa dhif ahayd carruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo. ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yiqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilmo ka soo daadato. sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guubaabo, diradire iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweelada iyo maansada dabeecsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali kareen. hase ahaatee wuxuu xeer waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha iskana indhatirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay. sidaas awgeedna waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray, tixan macaan badanna ku muujiyey. waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray gabyaagii sida aadka ah u jeclaaday, dabadeedna guur iska daayey mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weydey. kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado, dagaankana uu inan kale ka raadsado. gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yarad bixin doonaan, welibana ay xeryihiisa xoolo ka buuxin doonaan. gabyaagii markaa ugu jawaabay fardo, geel, lacag iyo dahab, hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalin uun intuu hor fadhiisto inuu ijo la haasaawo. gabyaagii ku adeereeray 90 farasa, xamar towlan iyo tuur caddiya mayda markab tiirsan, lacag lay tirsiyo dahab la ii tuuro, lagta dabajiroo wada tifrina, tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijoon kor u tiraabaayeen.
maansayahanadii Soomaaliyeed ee qarnigii 19 hana qaaday waxaa ku jiray nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheeraysan jiray meel walbana ka sheegi jiray waa maansayahankii Weerar Bulxan la oran jiray ee ay qamaan Bulxan walaalaha ahaayeen korna uga weynaa wuxuu weerar xilsatay gabar mulaaxa la oran jiray oo bidacdeeda lala asqaraaray nagnimo ku darsatay reer qaran ahna ka soo jeeday wuxuu isku dayay intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xidhiidhnimo ah isaga iyo aabaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aad u fara badan aadna u tayo sarreeya oo suugaanta Soomaalida ee jacaylka iyo xidhxidhada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay waagii bariya iyo qoraxdii dhacdaba tii cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotada u keentaa wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xariira dhammaan suuqadda uu dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaad ay ahaataba iyo 3 wariyahaad xoolaha ay Soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadha wax u ballan qaadayay waxa ila yaabadnaa marka uu ku leeyahay haddaad aniga i guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weligaa dambe luga kuma socon doontidoo xataa libaax baanu kugu layli doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer laxawsaday qorax dambe iyo iyadu inaysan is arki doonin oo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geedo loo dallaalimeeyo oo kulaylkeeda isaga gudba wuxuu yidhi lowsada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyey jidbad lulata xilqado soo lalmada laabta iyo qoosta 6 maraad ku kala laysato oo laqan adeegaya la jisiman muraayada lukuyan looyatada baarka lama adhowra laas ila xirlooda lididda loo yeelay dalmadadan furaas lagu gamo iyo laba haloo saaran lista geela caanaha kan loox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gob iska laameerta lubiyad soora laashida bardeeda lacag la soo siiyey ludda ibilka loocaani kabash laqaya gooleedka lafayaraha aan kuu dejiyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaaxkay ku tahay inaanu kuu leeliyo luga kuma gashide daabad baa kuu laxaad noqonne laan baan dallaayadin shamsada lowga kaa qabanin أول لما أقول الملاحة وعلى ولا بستي gabayadii weerar ayaa magaceedii cidka sare gaarsiiyey ruux waliba wuxuu jeclaystay bal inuu arko inantan uu gabyaagu ku naanaabay ee reerkiisii iyo haweenaydii uu qabayba iluu siisay maalintii dambe iyada oo codsiyadiisii aan weli hawaasan odhan asii ogol diidan ah ayaa waxaa isdamacsiiyey nin nuur idiinle la oran jirayoo da ahaan weerar ka weynaa saatan baa dhexdoodii ka bilowday hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geeraahda ammaana oo inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee talow nuur idiinle muxuu isku halaynayaa barnaamijka toddobaadka soo socda ayaynu su-aashaa jawaabteeda ku ogaan doonaa dhegeystayaal sida laga yaabo intii naga socotay inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee Soomaalida inay ku tira yaraato waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee Weerar Bulxan la oran jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday waagii intuu caada dhaafka ku kacay uu maantadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray inkastoo taxidiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waaye dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu ina rag u wada hanqal taagay kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiinle ugu soo horreeyey waatay inoo rahmanayd su-aashii ahayd hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo
geeraare ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee tolow nuur idiin leh muxuu isku hadlaynayaa marka horeba nuur wuxuu mulaaxa isdamacsiiyey isaga oo og halka ay weerar arrintu ka maraysa iyo siduu inanta u jecel yahay degaanka ayuu wax kaga nool yahay wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u bareeray dadkii degaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisa ee ay isaga uun xila u noqon doonto dhabtiina nuur idiinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo sidasa ma hayso tixrihii weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hadlayn jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadin ah ayaa xeryaha uga buuxay isaga ayuunbuuna isku hadlaynayay maalintii dambe xaashada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa ina idiinle la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u eg tahay tu aan gacan kuugu jirin marba haddii diidmo laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah quraac iyo harimada uga dhigaya markaas buu ugu jawaabay cagweyntaa gabyi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo hareeradayda ayaa iiga filan dabadeed nuur idiinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatayoo siduu hidduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheed ka doonay afmaran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doono ayuu golihii ka sheegay markaas buu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey daydka markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo mehelin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay ahayd aabbahaygu ina idiinla iga yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idiinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballan qaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan koldhow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aad isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheerannimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sarsaftay wuxuu ku xodxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxoodii horaa aayad loo qoraye labadii usoodu isku taal kalama oolaane ubadkeenna aan kala ciyayn agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac adooyaadee adna umarka waad ila qabtaa aanan ibyoonayn ilwaad quruxsan leeyey haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma ilxumaateene afar maro abxadaan kuugu rido awsi iyo khayri ina deeq xidaayadi ku taal boqor alaafaada asli boqora kuu laga afjabo arag wanaaggeeda usha luqunta aydida sunuuf olol cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayn axmed wiilashiisiyoo shaqlana iyo awowgaaba ayax iyo arbahaye iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo awmahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aadi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyay abtiyaalada iyo wixii kuwa arxamo sheegta inkuu aragtay aadliga waan wada ujuurayn intaase ina idinliyo ninkuna u indha taagayso sow ina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idin iyo dhalaabta qaarkeedba ay mulaaxa maankiisa ku sugnay haddana weerar ma xero la-ayn haweenay aad u jeclayd ayuu qabay qudheedana waxba kama qarsoonaynoo
sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo uu iyada iimaansado markii ay taas ku guulaysan weydana waxay u cabatay hablaweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhibrin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaan ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilsi u qaadatay ayay laabta ka oyday waxay ka kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugaba naasa caddaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka haleelay hanni iyo hawo adduunan la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u toog haysee afadiisii oo guubaabo qabta ayaa si degdega gogol cusub iyo weydaadis isugu kor saartay balkin soomagala ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo agtuumisay xeelyo iyo madiibado afka wada hayo oo ruuxii adkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buu xagga eegay mase waa hilbo jeerjeera kuwa kumbisa iyo oodkacgeed adari lagu udgiyey dhinaca kaluu eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caano ah ay ka soo midhaashay waraasi lo-aad iyo karuur geen iyo garoor ari oo aan weli dhanaan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqa ashiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu gorodda laalaajay garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gubasha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay marab marsiina ah boqor midabo qurxoon gambo ilyara oo sugul madow ah dugaagado lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqday waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheekala-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooye aan laqbaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiiyo kabdhaha laysdul dhigay sida hadlaa baalkii hilibka cusub haydaari wan iyo subag la hoogaansay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaad igu baayici kabaha ad hawga kaga yeedhin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon habin korkaad joogo waa habeena'aan dhuunigaad hoo i leedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahay haasaawahaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaani hubsan sootaad haligi ha isku haraq goyne haraggayga unbaad arkiye kuma soo hoyan runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay waraaqdaydii isii kuma ay odhan madaxayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo